duqa degmada Baki ee gobolka Nawdal Maxamed Axmed Caataye ayaa soo kormeeray howsha ay dawladda hoose ee degmadaasi Baki iyo xildhibaanada deegaankaasi laga soo doortay ay ka wadaan deegaanka buurta toddoba kormood oo ah dayactir lagu samaynayo wadooyinka halbowlaha oo ah isku xidhka degmada Baki iyo degmada Boorame ee gobolka Nawdal. duqa degmadaasi Baki Maxamed Axmed Caataye ayaa waxa uu ka waramay howshaasi lagu dayactirayo wadada halbowlaha oo ah isku xidhka deegaanada Baki iyo Boorame ee gobolkan. anagu hadaan hay kula deegaanka degmada Baki waan ku cusubnahay kulay degmada kulay waxaan jecelahay mashaariicda halbowlaha ee adeegyada bulshada ee haboon inaan bilowno halkeen waa mashruuci labaad in 7 joognay wax ka qabano wana halbowlayaasha ugu waaweyn ee degmadu amba wax ka suuq geyso amba wax soo maraan degmada Baki gobolka Awdal meesha qulana wax dhana weey kulay hadaan ka waramo degmadan wadadan waxa sameeyay ولدي Germany Agro Action يعني نص ماشي رجعنا واحد قصو شقيه بريقادي وش شقين جمع وطلاسي ومشاريع بدن وكلو قبتين أما هيدا كلا قبتين بقى واحد دتك الصحيح إنه واحد قصدان أو أي شوكتين شقاديس وأنو هكذا مشروع كتير أنا كل شوكسين سنة وبابين كل دتك كل أدك تاي إنه حيل شوكتين أو سيدي دي لا وضع نقوم نخلي هذي هاي قلنا عصب يعني صباح يا ماما نخلي عصبيتك من Baki dadkayga markii aan doorashada galanay waxaan ugu ballan qaaday waxa inuu isbedel imanayo inaan isbedel keenayno isbedelku inuu ka wanaagsan ahaado waan u sheegin marka waxaan jecelahay horta wixii dadku ka soo baxay iyaga ee dakhli ee nooga soo baxay dadku cashuur bixiyaan inaan degmada gelino oo yani aan mashaariic ugu abuuro oo yani wadooyinka ugu sameeyno iskuulada ugu ranjeeyno heeso lagu qodo ugu yani adduunka ugu baaqno ayuu go'aankaygu yahay. xildhibaan Ducaale Axmed Yuusuf oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi Baki ka soo baxay oo isaguna kamid ahaa wafdiga uu hogaaminaya duqa degmada Baki ayaa waxa uu isaguna ku celiyay qayladaan ku aadan dhismaha wadadan. waa bilowgii ugu horeeyay ee golaha deegaanka cusub uu doonayo inuu barnaamijyadii dadka u sheegay inuu rumeeyo wayna ka go'an tahay inuu hirgeliyo wixii muhiim bulshada u ah hadday tahay waxbarashada isdeedka caafimaadka waxyaalaha asaasiga oo halbowle uu yahay jidku way ka go'an tahay golaha inuu fuliyo muxuu ahaa ballanqaadadiisii waxaan leenahay cid kasta wax ka qabanaysa diyaar baan inaan wax naga qabtana aad iyo aad ugu rajaynayo. si kastaba haatee dhismaha jidkan ayaa u baahan gacan ka balaaran tan dawladda hoose ee degmadaasi Baki waxaana xukuumadda weli qabyo ku ah ballanqaadyo badan oo dhinaca wadooyinka ah ay u qaaday dadka reer Baki. Cabdi Fataax Axmed, Hadwanaag News, magaalada Boorama.